sidoo kale waxaa jira in gumaystihii reer Yurub markii laga soo tago masaaridii iyo annaga iyo ganacsiyadii iyo noloshii naga dhaxaysay marka laga soo tago gumaystihii reer Yurub goorma ayuu Soomaaliya soo degay oo si uu u gumaysto si lamid markuu imaanayay Soomaaliya ma sahan ayuu soo dirsaday oo uu soo dhigay kormeer uu soo sameeyay mise way iska soo duldegay dadkii hore carabtii hore Soomaaliya waxay u aqoon jireen dhulkii Ilaahay dalan abunti Romaaniyiintii horena waxay u aqoon jireen gobolkii udgoonka geeska Afrika region Ormantivera Soomaaliya marka waxay ka mid tahay dalalkii uu ku soo wareegay horyaalka Carbeed ee dunida bartamihii January 1330 Ibn Battuta ayaa dooni wuxuu ka soo raacay magaalada Cadan ee dalka Yemen safar qaatay 4 bari waxa uu imaaday magaalada Saylac kumuusan siyax kanin oo xamar buu soo aaday markaan wuxuu soo galay 15 maalmood safar qaatay hadaba markuu Ibn Battuta imaaday Muqdisho wuxuu ku tilmaamay meel aad u baaxad weyn Allah subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay nimcooyin kala duwan nimcooyinka marka waxa ka marakacaya Vasco da Gama oo ahaa gumaystiga Portugiiska ninkii hogaaminayay 1449 ayuu ka soo laabtay dalka Hindiya kadibna weerar wuxuu ku soo qaaday magaalada Muqdisho laakiin weerarka kuma uusan guuleysanin laakiin markii ugu horeysay gumaysigu dalka uu soo galaa waxay ahayd 1517 marka oo Portugiiska lagu xogeeyay badda cas Cusmaaniyiintuna ay qabsadeen magaalada Saylac laakiin nasiib xumo Cusmaaniyiintu ma aysan qabsanin magaalada Berbera taana waxa ay keentay in 1825 in Berbera ay soo jiidato dareenka dawladda Ingiriiska oo waqtiga gumaysan jirtay dalka Hindiya Ingiriisku marka wuxuu u soo diray markab la oran jiray Mary Anne oo uu horkacayay in la oran jiray Damelingan markabka ayaa wuxuu ku soo xirtay magaalada Berbera Ingiriisku waxay iska dhaadhiciyeen in dadka reer Berbera aysan ka warhaynin in markabka magaalada joogo laakiin taa way ogaayeen si lama filaan ah ayaa weerar loogu qaaday markabkii halkaana waxaa lagu dilay hal qof oo ka mid ahaa rakaabkii iyo hal qof oo ka mid ahaa shaqaalihii markabka sidoo kale halka waxaa lagu dhaawacay taliye ku-xigeenka ciidanka ninkii marka Ingiriiska markabka marka ninkii marka Damelingan asoo baxsi ah ayuu dooni wuxuu raacay la oran jiray diyuura dawlad halka ay Cadan buu ku badbaaday Ingiriisku marka arinta aad ay u xumaadeen waxayna go'aan ku gaareen inay aargutaan waxay soo direen marka maraakiib oo mid walba ciidankiisa wata markabkii koowaad ee soo direen waxa la oran jiray Tomar kii labaadna waxa la oran jiray Pandora markabka saddexaad ay soo direen dawladda Ingiriisku ma lahayn laakiin waxa iska lahaa wadanka gumaysan jiray Hindiya shirkad laga leeyahay shirkadaana waxa la oran jiray East India Company markabkaana waxa la oran jiray Amherst dagaal ayaa lagu soo qaaday reer Berbera 6 Febraayo 1827 dagaalkaana way ku guuleysay Ingiriisku taana waxa ay keentay in odayaashii ama uqaashii marka reer Berbera ahaa in laga saxiixo heshiisyo kala duwan heshiiskii koowaad wuxuu ahaa in hortay ay bixiyaan magdhow maadaama ninkii markabka Damelingan la soo weerarto magdhow ninkaas siiyaan sidoo kale odayaasha waxa laga saxiixay in maadaama ay dad shacab dileen iyo rakaabkii iyo inay diya bixiyaan sidoo kale odayaashii waxa laga saxiixay in dawladda Ingiriisku magaalada Berber iyo aageeda in sin abni ah ay u ganacsan karto laakiin taa bedelkeeda odayaashii waxa loo saxiixay in markii tagaan meelaha Ingiriisku uu maamulayo la soo dhaweyn doono qaab fiican loo dhaqmi doono Ingiriiska waqtiga wixii ka dambeeyay reer galbeedku waxay soo direen sahmiyaal oo dad u soo sahmiya tusaale markii reer miyiga markii uu rabo in qofka reer miyiga ah reerku inuu barin kara uu tago wala si sahmiya
oo roobka ay meesha leeyihiin iyo halkaa lasii ogaada kadib baa meesha loo la aadaa markaa ka bacdi baa hadafkooda ka hirgashanaya marka sahmiyaal bay usoo direen niman aad u badnaa ay ka mid ahaayeen Richard Burton Spike Ito Anthony George rag sahmiyaal ay soo direen oo Ingiriisku wataan halka hadaan kaga soo gudubno ayuga gumaysiga Ingiriiska dhanka kale waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho